بسم الله الرحمن الرحيم معاميشنا شرفت له كحرا شركة دالس ريل استيت ولا ليال سود دوادا كسود دوادا قلب فرن gacmo furan iyo adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaan nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah daawasho wacan ka bogasho wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah gurigan waa guri aad u qurux badan inaba caadi ma aha waxaan guda galayaa faahfaahinta xogta ku saabsan gurigan iibka ah ugu horreyn gurigani waa guri villa ah waxaa hadda ku dhex jirnaa gudaha guriga waa guri maasha Allah si qurux badan u dhisan guri casri ah naqshadihii u dambeeyay ah aad iyo aadna loo qurxiyay isha macallin ah waad arkaysaan sida uu qurux badan yahay iyo qalabka tayada leh ee lagu dhisay gurigani haddii ay naqan lahayd albaabada rinjiga jikadiisa oo kale hadda waxaa joognaa jikada guriga waa jiko dhisan casri ah si fiican loo habeeyay sidoo kale suuliyaashiisa ay habaysan yihiin oo si hagaagsan qurux badan loo qalabeeyay safiitada waad aragtaan safiito qurux badan derbiga iyo safiitada ay isku soo baxayaan walaalayaal haddii aan guda galo waxa uu gurigani ku yaalaa magaalada Muqdisho waxa uga sii yaalaa degmada Yaaqshiidna waxa uga sii yaalaa xaafadda Shakti haddii aan idiin tilmaamo ama aan sii faahfaahiyo waa xaafad ka mid ah xaafadaha degmada waxa ay u dhowdahay ama ay ku taallaa aagaarka saldhigga degmada Yaaqshiid markaad ka timaado isgooska Fagax ee aad u soo socoto isgooska Tawfiiq ama Hotel Tawfiiq saldhigga inta u dhaxaysa isgooska waliba intaadan gaarin meesha loo yaqaano Jiiro Garoob waa xaafadda dhankaaga midig ka qabanaysa ayaa waxaa loo yaqaanaa Sona Shakti sidoo kale dhanka bidix xataa waa dhihi kartaa waxaa ku oli jiray meel harqaan oo waagaas caan ahayd sidaas ay xaafadda waxay ku qaadatay Shakti waxa ay saaran tahay jidka Soddonka ama laamiga weyn ee Soddonka gurigan villada ah laamiga hadda toos uma saarna 1 iyo 2 iyo 3 marka xoogaa yar ayuu u jiraa laakiin laamiga Soddonka uma dheera waa guri hal jidla ah bari ujeed ah waxa u jeesanayaa dhanka bari ujeedkana waa kan loogu jecel yahay galabtii hoos fiican ayuu yeeshaa hadda waxaa idin tusinaynaa walaalayaal guriga banaankiisa hadda si aad u aragtaan maadaama gudaha aydan soo tusnay sida ujeedaanba guriga waxa uu leeyahay interlock yani idinka iloobin albaabkaas madow guriga leh waaye oo naqshadaas quruxda badan leh u dhisan waa naqshadihii dambo midabka cadaanka ah leh wadadiisana hadda ayaan idin tusinaynaa waxa uu leeyahay wado aad u weyn oo intaas oo baabuur ama gaari ay isku dhaafi karto wadada waatana dhinacan meeshaas hadda wiilka oo ka soo socdo dhinacii kalena waa kana wadada si u balaaranta waa aragtaan waa wada xataa laami weyn la saari karo soo dhawaada walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka gurigan villada ah oo ku fadhiyo cabirka waa 20 lagu dhufto 10 ama finti bardiyeeshe dadka qaarkood sida u yaqaanaan taasoo ah wajiga hore ee guriga inuu yahay 10 mitir dhirirkana uu yahay 5 mitir soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta fursadan haddii aan faahfaahin idinka siiyo qolalka ka dhisan ama waxa ka dhisan gurigani
waxa uu ka kooban yahay guud ahaan 5 qol oo 4 qol oo kamid ah ay tahay jiif. Hadda waxaa ku jirnaa qol kamid ah qolalka guriga. sidoo kale waxa uu leeyahay 3 suuli, jiko qurux badan, barando iyo baarkin. waa barxadda guriga taasoo si qurux badan loo dhisay, interlock uu saaran yahay, ubaxyo iyo geedo lagu beeray. runtii gurigani waa guri casri ah, si qurux badan u dhisan. haddana dhismihiisa uu cusub yahay, duug ma aha, sida haddaba aad ka aragtaan muuqaalka. 4 qol oo mid fadhi uu yahay waxa ay ku yaalaan gudaha. 3 qolna waa jiif. sidoo kale qol albaabkiisa uu barxadda kusoo furan yahay oo loogu talagalay qolka shaqaalaha ama qofka markaas cidda caawinayo. marka guud ahaan waa 5 qol, 4 qol ay jiif tahay, 1 qolna uu yahay fadhi. qolkaasoo xoogaa qolalka kale ka ballaaran. waa qolka hadda aan ku jirno. dhir ahaan waa qol aada u weyn, fadhi ayaa loogu talagalay. meeshaan hadda u jeedaan waa meeshii qolalka u dhexaysay. haddii aan ka hadlo walaalayaal, dukumentiga gurigani dukumentigiisa waa nadiif. waa dukumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre. warqadaha waa ay u dhammaystiran yihiin. nootayo alle mid aad jeceshahay ayaa lagaaga wareejinayaa. haddii aan ugu dambeyn aan ka hadlo dhanka qiimaha, walaalayaal gurigan qiimihiisa waa qiimo macquul ah. waa guri qiimihiisa uu jaban yahay, raqiis ah. waxaa lagu rabaa keliya $100,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah. waa ujeedaan gurigan si uu qurux badan yahay. xaafadan waxaa laga yaabaa boos bannaan ama boos guri aada duug ah in lagu dhaho 100,000. marka gurigan isagoo dhisan ayaa waxaa isku noqonayaa 100,000 oo ah macal dalaal macal wax dhan ah. meeshan hadda ay ujeedaan waa albaab ay jikada bannaanka ay ku leedahay, si yacni asturka loo ilaaliyo. qofka jikada ka shaqeynayo qolka bannaanka degan oo kale meeshan ayuu kasoo geli karaa. familka inta kale isma arkayaan. kusoo dhawaada walaalayaal, lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira. qiimaha intii macquul ah, wixii lagaa dhimi karo waa lagaa dhimayaa. gurigan haddii aad ku qanacsantahay waa lagu soo tusinayaa. haddii aan walaal mar kale idinkugu soo celiyo, xogta guriga waa guri fillo ah. waxaa ka dhisan 5 qol, 3 suuli, jiko, barando. waa guri si casri ah u dhisan. cabirka 20x10 uu yahay. xaafadda uu ku yaallo waa xaafadda Shakti, degmada Yaaqshiid. waxay xaafadan u dhexeysaa Tawfiiq iyo xaafadda Ceeltubuweyne ama Saldhigga. laamiga 30 ayuu ku dhow yahay. soo dhawaada. qiimaha waa $100,000 Mareykanka ah macal dalaal ah, isku dhammaad ah iyo heshiis. walaalayaal ugu dambeyn waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xirantihiin shirkadda Dallas Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelino. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.